لكن أرنت وجود رني محاولة سبك جاري ما تنوع جاري قلبي لفترة مارك ليش تعصب كرهان أنا يصير في الجودة فريق لوجي أرنت هذا رد أرنت هذا حكمل ولا صوت كمان كأرنت صوت وأنا إن شاء الله ونعود ونشجع لكن أرنت ما حاول يكون عدو بيشتي الصوماليين معي ومارك حيث إذا الدفري بديو أو الميلتي في صومال ولا قصة على أهل الأرض وحمد وياه هل كان أتم محمد فيد كاهي جدًا واحد كاهي بالبربر مجال الجاري إنه أركو طبعًا مدحونه كل ما بوقن كرب بخار ما بوقن كرب لكن عكور هي ديب كدعين تلقي هاي بربر سوق جاري مجال هذا يدك يلا لك السوعين وأنا هاي لو كسوعين مرك ديب دع ديب قبيل ملحن ديب ضد ما يقان كلر ملحن عد كستو صامية مرك مدحونه وحنقوم هالعلنا runtu ka war hayay inta safarku soo jirnay waxyaalaha intu wadanka joogay inta ka maqnaa ka xumaada kamid ahayd wad la socotaan maalintii koowaad ee dib ku dhacay ee halkan laga taxeelay aniga iyo waaskii dadna la mid ah inuu madaxweynuhu ka hadlay oo statement ka soo jeediyay oo intaas oo jeed dadka advocate sameeyay waxaan socdo waa qalad hadii la isma dhageysanayn waa ayaan darro ay jirtay kamid ahayd madaxweynuhu wuxuu ku yimid rabitaankiina wuxuu ku yimid wuxuu ka xumaaday dibkii idin haystay idinka jaarsi kaliya Soomaali dhan buu haystay ummad dhan buu saameeyay marka madaxweynaheena waxaan leenahay madaxweyne maanta shacabku inuu ugu horeeyay aynu aragno weeyaan oo markii koowaad dadkeenu ay telefoon la soo galaan xarumaha dawladda markii koowaad ay boorka madaxweynaha ku salaami karaan ku qaabili karaan marka waxaan leeyahay wixiina gaaray ummadeenu kala midnahay waxaana xaal marin nagu fulan maanta inaan madaxweynaha aan dooranay oo rabitaankeena ku yimid oo shacabku rabaan inuu maanta inoo yimid أنا هدانا هاي من كنيسة كررت ما أنت يبغى رئيسارون تي وانك عاول حماد مركز أركي ماشي هكذا قد الرجال قد الرجال جربنا مقدوم متشتو عنا ندبو قبل ملهن ما أنت هنا وخدت السنة عدولها أميرة متشتو صوالو واحد ترى مدح ميل كسر صراحة ملهن مدحوني ما نوتشوجا waxay la mid tahay oo arkay guri kasto la dumiye waxay la mid tahay oo arkay baqaar kasto la boobay waxay la mid tahay buul kasto la gubay oo arkay in naf kasto la dhaawaco oo la dilay runtii sida uu gubanayo ayuu qof kasto dambe lagu gubanayo wax meesha ka dhacay waxaan ka codsanayaa wixii la dhaxan yaalay inuu haro argos hebel meesha haddayna maanta inagu dowladda qof kastoo jaarsi adduunku talaabo qaadin waxaan hebel ma ka argoosan inta hadda joogay agsaba madaxweynaha wada joognay waxaan la soo sheegay hebel ma naqaana hebel ba kamid ah kana kamid ah waxaan ka codsanaa sharciga uu daayay hebel annagu dad nabadgeliyaan salaam soo waxa suga insha Allah taala shaqadiisa ma bilaabi doonaa wax badan oo dal dhan baa laga duusan hotelkeen insha Allah dhawaan bilaabi doona wana nadiifin doona wixii inaga xumaad inaga hagaagsan doona waxaan ka rabaa bas inta ku dadkaan oo ogaata waxba inaga maqna madaxweynaha galabkiisa